maanta waxaynu ku kulannay ergeega meel la yidhaah jufada uurka la agteeda waqti kulul bay ahayd ma aynu haleelin inaan halkaa wax isku nidhaa hadda isla soo guryahoynay hadda halkaan joognaa waa gobolkii Awdal degmadii Boorama hoteelkii Rays idinkoo ka kooban sidaan xuquuqaal ku nahay garxajis waxaan idinku soo dhaweynayaa magaca ummadda Awdal iyo Salal degan cid kastaba haatee magacaasaan idinku soo dhaweynaya waxaan leeyahay waa dalkiinni waa dadkiinni marti kuma hidin idinkoo marada doonaysanaya halkaa doontaan baad mushaahaysaan danihiinna waad dhammaysanaysaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan niyad farxsan maskax fayo ina firfircoon baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobollada Awdal iyo Salal ku soo dhawaada wiilana degmada Boor ku soo dhawaada wiilana وعلى يري هذا ومالين ميل ولا يالي وهذا اللي يهدينا ماشي سال سوينا هدي لا يرادو علينا هاي مرتي لا يدي سود وهذا ومقالة ديني وادت كيني وادل سود وهذا وقت هذا اللي بدنا نقول لكن أبدا نفسي بيكون محد مقلنا سمعتك عن موت العبير تاريخ العالم وحنا دفع يوم باكو جرايو ونوخو ورسكي سولينا وانتخدرين تا أدبار لو انتي خمسة يوم تاي نفسي صاونا أدبار انتحدرين يفتلا لو تاساد انت هبضا قام النار وخالو وإنني مستحدرينو وحاولوا وحان قبلنا كررات مهدو سيدي وحان كدولينا وان قبلنا ديار بان نحي أنه gobolka Awdal oo isa iyo gobolka ku jiraan iyaga bulshada qolka badhibaankii iyo cid walba ay ku socdaan oo soo mid yahay waan isixdeena waan soo dhaweynaa wixii talaalo waa loo fariisanto bismillaahir rahmaanir rahiim marka horeysa ilaahay baa mahad leh marka xigta waxaan mahad ballaaran oo aad u qiimo badan aan ku soo dhaweynayaa oo aan ku tixgelinaynaa soo dhaweyntii iyo qaabilaadii iyo suuriyadii fiicnayd iyo gogasha fiican iyo hoolka fiican ee nagu qaabisheen iyo ehelnimada iyo hadalka wanaagsan ee noo raacay aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiinba haddaad Salal tihiin iyo haddaad Boorama tihiin aw baranay raace iyo inta kale ka dhaxaysaba aad baan idin soo dhaweynaynaa hore harweynooda waan ku daran haata xariiradiga oo maqnaa inta markaan dhaafo hadalka waxa dhameeyay salaadiinta hadalkeenuna fadhigu ahaan doonaa waxaan u soconay waa ka dheregsantihiin waxaan idinku nimaanagu geelaya naga dhaxeeya iyo wanaagga naga dhaxeeya mahadnaqiisa iyo islaahdiisa ayaana idinku nimi waxa dambe gaar baan isku oran doonaa ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala isaga mudan loo mahadnaqo marka labaadna waxaan aad ugu mahadnaqaynaa beesha reer Awdal iyo Salal ee halkan lagu soo dhaweysay soo dhaweynta qiimaha leh ayaanu ka mahad celinaynaa sida la sheegay waa la magacaabay waqtigu wuxuu ka kooban yahay waa garxajis guud ahaan wixii dambana waxaynu kaga wada hadli doonaa fadhigayada kaga wada hadli waa magaaladeedii waa mahadsantiin